السلام عليكم. وحقيقة العادة مسعورة كجرتين. Where are you guys? ومدحن وإيقاوينه بلي كده. Hello Hassan. Happy watching. جويرية سودواد صاحب يا سودواد عوانك نصو أخرستا يا بريكن نيوز كعيدنا وايدين سودجيي يا باش كعدي سودواد الأمانتي انت ماشي كجرتا منى عبدي وايدين السلام يا سودواد يا عوانك نصو أخرستا وحنا إدين شيغا يا hal wax kaliya idin ogeysiinayaa saaxiibayaalo Soomaaliyeey ciida hadduu Ilaahay yiraahdo 16 June ya anaga maalboon waxaan noo joogtaa fanaanada loo kala baxay Fartuun Birimo fanaanada qaranka oo noo wada heesii hore heesii dambe heesii dhexe intaba. She will shake you guys. Ciida waxaa ku ciidiin waa idin haynaa reer Melbourne haddaad tihiin soo dhawaada yaa soo dhawaada waa aragteen intaas waa iga ogeysiis ayay iga tahay meel kastoo aad joogtiin yaa waa share garayn kartaan fanaanadana waa u share garayn kartaan. waan dhownahay Muna Cabdi Qaali soo dhow daali sharna ku qaba please ya hani qurux soo dhawaada sharna igu qabta please saxaabay dhalinyaro saaxiibayaalo gabar fanaanada meel fog nooga timid fanaanada Birimo waa taqaaniin Fartuun Birimo ya oo 16 June insha Allah maalinta Jimcada ayay noogu soo aadan tahay ciida يا habeenka ciida ku xigta ee sabtida ah. Fatuush Maxamed sheer ku qabo walaalay sheer ku qabo la xaala mi maxaa waxaas la xaala mi mami maya wala xawla ma aysan dhihin waa magaceeda waa la xaali mami نستيحة حسن داي ونستيحة فيسبوك لو كو عم فيرسنا عن واكاق جيدة هدي حدين شيء عيادي شوق إنان شدنا ري مالبون هدانا هاي يا إلهي يا ciida hana gaarsiiyo wax badan ka sokeeyay inaan dhiman doono in kale lama oga 10kii dambe ee barakeysnaa soonkan waa la soo galowhayaa ya marka magaalada Melbourne Fartuun Birimo ka shidan la socda meel kasto joogtiin sheerka iigu qabta please waa idan baryaaya dadkiina meesha ku jiro sheerka iigu qabta شمسو شير قبو صاحب شير قبو Fartuun Birimo fanaanada loo kala Fartuun waxa ogaatiin sida wadanka looga soo qaxay Soomaaliya dagaalka sokeeye u dhacay dadkii ugu horeeyay ee fanka soo galay inay tahay she have 20 years experience ayay haysataa Fartuun Birimo waa fanaanad qaran oo qabiil ka hadlin oo aan qabiil ku heesin oo ma taqaanaade fanaanad la jecel yahay waxaanu leenahay soo dhawow Melbourne ku soo dhawow oo ku kala xireynaa waa ku kala shubaynaa ogaada share intaan share iigu sameeya ya intaan share iigu sameeya xasan xuruush ma ku soo qabtaa walaala soo dhawaada saaxiibayaal ya soo dhawaada
وإذن شيء هداينا وحا أن كهدلاي وأركتين دليرو وحا أن كهدلاي وندهاي markii la afuro ayaa nacas walba intuu meeshan soo galo ayuu afka furanaya oo dadka la isku diraya waa ila aragteen meeshan dadka ka qabqablaho yaa ogeysiiskii fanaanada qaaliga markaas uga baxo primo ina sheer gareeya markaan fanaanada qaaliga asaa ogeysiiskeeda uga baxo yaa waxaan galabta ka hadlaayay aniga markaa waxay ii ahayd mar la afuray laakiin adinka galabtay qaar waxay u ahayd duhuradii waxaan ka hadlaayay waa aragteen intii nacasoo soo afurtay meeshan xataa maxayba ka soomayiin kuwa dadka isku diraaya waa aragteen waa ila aragteen yaa hadda cabaaran facebook ku jiray waa arkay intaas oo iska nacnacleh oo ummadda isku diraysa mid dhahaaya maalahan yaan la isdilinsaan war nin aan waxba u ogeyn mid faaninaayo mid cabdiweli faaninaayo mid muuse biixi faaninaayo mid hebelow faaninaayo waxaas qalad waaye waana ka wada hadalnay inta samaha jecelay inta soomaalinimada jecelay qofkaan weligiis facebook gelino xataa gal arrintan nagu socoto wax fiican ma ahan يا أنا قاعد إسوا وكيلة تمجرتو ولا سومالي لانا ليجا سوا وكيلا ولا بنت لان باليجا سوا وكيلا مسكح ذا وحي تستي يا إن الدباتو تهيدت سومالي وعدم وحبت إسوها يستو إسدلايا يا وأصل دلني وأصلني وحكستان قد حياة مي فهمتين هل سومالي هل دين هل لوقت أيانا hooyooyinka Soomaaliyeed waxa la idin kooga ina guryaha wanaajisaan dhalinyarada wanaajisaan hooyooyinka mushxarada wiilkeeda dhiigeeda u mushxaradaysa ama wiil na kala dhasho u mushxaradayso waxaas iska daaya soona lagu jiraa mid kala hooyaata hooyo waa mid loo soo hooyin lahaa hooyo kan Hargeysa joogo hooyo u tahay kan Burco joogo hooyo u tahay kan jooga Xamar hooyo u tahay kan Beledweyne joogo hooyo u tahay hooyo waa hooyo wiilkii dhintana ayadu ka dhintay oo Soomaali dhiig xumada iyo damiir xumadana iska daaya ma fahanteen waana idin sheega hadaayatu waxaan idin dhahay caaw meeshan laguma kala baxaayo dadka qaswadayaasha ee Facebook ku jira ee ummadda isku diraaya ha joojiyaan wax fiican ha ka hadlaan Soomaalinimo ha ka hadlaan qabiilka iyo ducufnimada ha iska daayaan qabiilka iyo ducufnimada naga daayay dad Soomaaliya noqdo damiir leh dhiig leh dhacaan leh hadda iidan waxaan idin leeyahay Soomaaliya Ilaahay ka cabsada إلهي إذن أبورتي كعب صدا دجالة دنيا جوجية صونا لوجرا طبعاً كودن بيسال الصوغ علي دم بيجا دت كان فيسبوك كجرو يا دت كي وجرا فيسبوك إن العك سميان ومد إسكودر عيسى وردا إسكودر دام فيسبوك إن العك سميان إسكودر كصومالي ده وصومالي يكون جوجان أي isku dirka Soomaalida xabada isugu dhibayaan ay rabaan in lacag sameeyaan see ku badbaadayna see lagu badbaadaya idin sheegay gabdhaha Soomaaliyadu ya ee dadka masaakiinta ee kiilada burka xataa aan heli karin inta guryahooda jigtaan burku ay ilmahooda u duban lahayn ka soo aruurin lahaa oo wiil kale hooyo dhashay lagu dili lahaa sabaayad u dubayo dumarow joojiya ama waqooyi ka imow ama koonfur ka imow ree waqooyi adinkana cadowga aa samaysanaysiin iyo caytinta badan iska daaya dad Soomaaliya tihiin cadowga aa samaysanaysiin oo afkiina aa ku samaysanaysiin iyo caytinta iska daaya Soomaaliya tihiin wax idan nacib ma jirto dadka ka mid tihiin waa nala dhalateen waa is dhalnay ya dadka caynaysiin oo isku dariyaysiin oo qabiilada kasta oo afka ay ku dhufanaysiin iska daaya isku xishooda reeqooyiga taas xabadaas gooniya u ire ya Soomaali waa isla dhalatay walaalo waay adiga iyo aniga walaalaan isku meel baan ka nimid wax cadow ee ku ma jirto marka amarna ku boodid aad tiraahdid hawiya igu soo boodo marna daarawda igu soo boodo marna kan warani walaalkay taa waa ila dhalatay عقلها اسكحدين أديكو عقلها اسكحدين
soomaali oo dhanna cadow ha isaga dhigin yaa afka abeesa cuntay uma fiicna markaa adiga qabiil kasta oo soomaaliya caydid dee walaal waa laga fiican yahay ma fiicno wax iskaga kaa eexanayo ma jirto soomaaliya tahay waa isdhalnay waa isla dhalanay kulligeen dir iyo hawiye iyo daarooda isla nahay isku meelaan ka imaanay we are the same boat bal qofkan aan la fiiriyaa la soo qabta sug ها عبد الرحمن السلام عليكم سيتا عبد الرحمن هلو من مغلية ماما مغلية وفعنا مامو محي كلتا وحا عن كهلايو oo aan leeyahay dagaalka ka socda Puntland hana laga joojiyo dadku waa isku mid waa isku Soomaali maxay kuula muuqataadi maama anu waxay la tahay horta hore wadankii isheeg wadan hadda maanta ma ahan oo dagaal ka bixi karo intii dagaalami lahayd dagaal soo mara way soo martay dagaal wiil kuma dhashay wiil ku dhinto ani raay ahaanteeda waxaan qabaa dadku waa dad Soomaaliyeed waa dad wada walaala أنا رأيي كان كدي بنا واحد السنة كان يو سنة لو لسكو برمده وباهنا ولا تلمي هلما مر أبار على جسوا بحي مرنا شاكين دادا كقاضي دتكو ودت هلا دنا أول بونا كقاضي سومال بلان كوفرت مركا أنا واحد قبل رأيي هانتي دتكو ودت ولا لا ما نقبو إنه شاكين ما أنت دتك هذا الذي استكاك تاجان أي عيان أي ما أنت حدبا هذه وحن قباني رأي أو رير قلبتك هي هذا ودن كان كسعده يعني قلقلة اللي يسكو قدره أو قلقلة يبقى شيء وتاجمته وحصل واحد لقى تجا وقام واحد يعني قلوا والبابا هو وأسودي به الدولة والبابا قام واحد هو أسودي مركز هذا شيء كذي مرة يدول السياسة دي يعني قبا ما مانيكا يعني ضد كان وضد يعني iyagoo dhan dhalinyaradii abaad u moodaa inay gadan yihiin ba marka ani raay ahaanteed waxaan qabaa dadku waa dad walaala inay laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah islaamnimada horta walaali ku yihiin ka sokoona Soomaaliba isku yihiin ba marka ani waxaan qabaa raay ahaanteed inay soo tooba keenaan kulligood Soomaaliya u baahan ba inay soo tooba keenaan ilaahay u laabtaan bil rabadaana lagu jiraa in Facebook la iska caayo ma ahan tobankii ugu dambeeyay la galay مش رمضان أو الربيعات كإني كدو عيستان إلهي بريان إدواتان هيدو ما أنت إن إلهي كبريان لكن إني قبيل اسكو عيان هذا ساق يو دارات يو هوية يو إن هذا ما أنت لما دور قبيل لقيك الله ديك ما هو ضد ولا لا Soomaaliya Islaamnimo dibadii laga soo tago dad islaama oo ashaatu iyagoo dhan masaajid isku tukanayo waa hadda fiir markii masaajid lagu tukanayo ma la iscaynayo hadii la aadimo masaajidka la isla galaya hadhoona la isku caynayo Cabdiraxmaan maxaa ka dhiilayd hooyooyinka wiilasha dhalay ee labada dhinacba yaa alalaasayo oo burka dubaayo oo magaciisa hooyooyinkaasna maxaa ku waanin lahayd hooyooyinkaas waxaan ku waanin lahay intii hooyo ee dhiilaad wiilkeyga la yeelo wiilkeyga kana hore u baxeen kuwaas kuwa dambe laga gaaraan qabaanay raay ahaanteeda kuwa dambe gacan u baahan in lagu qabto kuwa dambe oo hadda jiilka hadda jooga oo Facebook maalin walba ka caytamayo oo ka dhaaranayo aan qabaa raay ahaanteeda kuwaas qabasho u baahan ma fahanti siyaad barre wax laga sheegay wax laga sheegay la dhahayo culummu laayay saano wax yeelay hadda masaajidada dadka loogu galaabo lagu dilaabo ma fahanti kuwii ganacsanayay oo laamiga marayay oo meel walba joogaya isheeg la leynaya ani waxaan qabaa raay ahaanteeda dadka waa dad ehela waa dad walaala qof walba raayiyo qabaa ma علشان qof walba ani waxaan qabaa raay ahaanteeda qof walba mabaadiyo wata hal isku tago hal laga wada hadlo hal isku imaado dad walaala leeyahay dad islaama leeyahay dad Soomaaliya leeyahay maamooyinka maanta oo alalaasay inay dagaalamaan
inay qabiil ها qabiil ay isku kala qaadaan inay ii sheegeen يس oo maanta ay هوية dhahaan إني هوية dowlad hebel aan nahay يس Puntland aan nahay anaga Somaliland aan nahay Soomaaliya aan nahay maanta ii ها sheegeen هل xilli la iskala qaado maba la joogaba xilligii la isku يس imaan lahay ayaa la joogaa يس qofkii maanta ii sheegeen nabad yar haystana in waa qof walaala oo eela intii yarta oo nabadda u haystana in loo dhaho maanta niyo waa lagu fiicantiin farxo idinka loo garab galo si nabaddaas iyaga ay u heleen adna u heshid berrina miiska wada hadalka la iskugu imaado oo la wada hadlaan qabanay raayahanteed yes Somaliland la wax ka nabadgeliyo dhexeeyaaba iska yarba Somaliland dhulku waaba naga badan yahayba waa shan dhulkiyaa iyo naga toban badan milyan Somaliland wax degan ba ma jirto Somalilanteeda ha ahaato waddankeeda ha joogta nabad ha ka dhigato Puntland sidoo kale Soomaaliya nimankaan adartaan koonfurta iyaga jooga sidoo kale aniga hadda aan yes kula hadlaayo Muqdishoan joogaa gaar ahaan gobolka Banaadir aan joogaa ma fahanta maama waa fahme maamo maalin walbana dhibaato le u joognaa mooyaane waxa horta hore sanadkan dhashan waa 88 bishii sagaalaad xabad iyadoo yes socotaan dhashan ma fahanta maama waa ku fahmi karaa haa ilaa ay haddana xabadaha sugayna xabad sugtada la dhihi jiray baa dhab nagu noqotaba ma fahantay warniyo haddaaba soo survive garaysa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxa weeyaan dowlad taqaanaa walaal nimankan soomaaliya madaxda ka ah maaragtay yani dadkii soomaalida isku diraayo qabiilka nin ay u danaynayaan male dhinac kastaba in laga garto afarta koone ee soomaaliya wax ka fiican male kuwan intay soo istaagaan miidiyahana hadba qabiil caynaayana kuwaasna ayaga laftigooda waxay isleeyihiin few badan aa ku heshid laakiin damage-ka ay geysanayaan ma yaqaaniin iyo dhibaatada ay dhigayaan may fahmaysaa meeshaan we are only one Somali hal Soomaali aan nahay dad muslimiin aan nahay dad walaalo ah nahay may fahantay marka waxa weeyaan dhibaataan haysata ilaahay dhibaatada nagu habsatay ha naga kor qaado may fahanta boo hello you still there كل حال waxaan idin sheegayaa Soomaaliyeed we are the same people same boat waxweeyaan dadka caado qaatayaasha ee soo istaagaya miidiyaha ee labada dhinacba ka socda ee caytamaya ya waxa ogaataa ya qofkan Soomaaliga oo walaalka birka maalin in u baahan tahay asna uu ku baahan yahay ma fahmaysaan marka saaxiibayaal waxaan idin dhihi lahaa dhibaatada aawadin wax fiican maaha may fahanteen salaamu calaykum habriir waa ismaqli doonaa insha Allah waxaan idin dhihi lahaa hadday wax ka dhumaan ii haaye waxaan idin dhihi lahaa ya dhibaatada laga wado waddanka ay dadkuna wadaan wax fiican maahan aniga maanta guri martiyaan xaafada marti ku ahaa xaafada ayaan ka sii baxayaa laakiin taleefankayga aniga data igu jirto waan ku hadli karaa intaan rabo may fahanteen marka Soomaaliyey dhibaatada aan iska dhaafno waraa cabdi hello waaba yaababe على كل حال هذا ولا ليالو سحور على جاري مركز سحورتك بعد أذنك سوعلنا يا إجنا رالي هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا أذنك أفرتين أنتي نبضن ما يبي قاركين ما أفرنين مركا واسكسون قنينا برمك ليان ربينا بهالقا وحيسي السلام عليكم باي